السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kulanti wacan wanaagsan daawadayaal waa mar kale iyo muuqaal kale oo xiis badan muuqaalkan daawadayaal waxaan idinku tusi doonaa oon idinku sheegi doonaa insha allahu tacaala 10 tallaabo oo aad ku soo jiidan karto qalbiyada dadka dhammaanteen waxaynu jecelnahay oo dhammaanteenba u wada heelanahay oo aynu raadinaa sidii ay dadku inoo jeclaan lahaayeen ama aynu qulubtooda u degi lahayn haddaba daawade intaanan muuqaalka kuu soo gudbin waxaad hoos doonataa in qulubta dadka iyo waxa weeye qalbiyadooda ilaahay subxaanahu wa tacaala ay gacantiisa ku jiraan qofkii uu sakhiro qulubta dadkana ay u sakhirmayaan oo de wax weeye ay jeclaanayaan qofkii aanu ilaahay subxaanahu wa tacaala u sakhirinna wax weeye ay dadku ayna wax weeye jeclaanayn xataa haddii uu wax kasta sameeyo laakiin 10kan qodob waa 10 qodob oo sabab u noqon kara inaad qalbiyadooda degto oo ay ku jeclaadaan dadku kow qodobka koowaad waxa weeye ama tallaabada koowaad akhlaaqda wanaagsan noqo qof akhlaaq wanaagsan leh waxaad heli doontaa qulubta dadka oo dhan rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi isagoo ka hadlaya dadka waxaa ugu iimaan dhammaystiran kan ugu akhlaaqda wanaagsan ama kan idinku akhlaaqda wanaagsan laba ixtiraam u muuji ihtimaam dadka si ay adiga hadhow ku ixtiraamaan waayo hadba intaad dadka ixtiraamtid ayuunbay adigana ku ixtiraamayaan haddii ay ku ixtiraamaanna qulubtooda ayaad gelaysaa 3 rajada iyo dhiirigelinta u rajee walaalkaa ama walaashaa khayr si aad adna u heshid qalbigiisa rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam isagoo arrinka ka hadlaya waxa uu yidhi isku rajeeye khayr si aad u heshaan 3 ku caawi dadka qofkii ku dhaha ma awoodo ku dheh isku day qofkii ku dhaha ma garanayo ku dheh baro qofkii ku dhaha macquul maaha ku dheh tijaabi 3daa shay haddaad walaalkaaga muslimka ku caawisid ogow si dhaba ayaad qulubtooda ku degi doontaa oo wax runtii aad ku soo jiidan kartaa oo aad waxa weeye aad u kugu jeclaan kara 4 qodobka afraad ee aad ku soo jiidan karto qulubta dadka ay kugu jeclaan karaan waxa weeye isduldhig isu duldhig dhammaan bulshada qaybaheeda kala duwan hanaad dareensiin walaalkaaga kale inuu waxa weeye aad wax dheer tahay mar kasta isla meel dhig xaaladda uu ku sugan yahay haddii aad iska weynaysa laakiin ama wax weeye uu kuu arko yacni inaad wax dheer tahay weligaa allaha qalbigiisa ma gelaysid laakiin waxaad qalbigiisa ku geli kartaa inaad isu duldhigto wax weeye aad xaaladda uu ku sugan yahay mar kasta aad waxa weeye isku dayda inaad waxa weeye aad kula waxa weeye noolaatid oo waxa weeye aad walaalkaaga aad isla meel dhigtid qodobka shanaad waxa weeye dulqaad weligaa ha cadhoonin haddaad cadhootidna isqabo maxaa yeele haddaad noqotid qof cadho yar oo wax kastoo lagu dhaho aan ka cadhoonin ogow qulubta dadka si fudud ayaad ku hadan kartaa rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi isagoo waxa weye arrinkaa inoo sheegaya waxa weye ka hadlaya qofka adag ma aha qofka geesiga yani aan dhulka la dhigin marka de waxa weye ama dagaal waxa weye la galo ama yani qofka geesiga ama ee waa qofka marka uu cadhoodo isqabta oo cadhadiisa waxa weye aan waxa weye rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam waxa uu yidhi isagoo waxa weye arrinkan ka hadlaya qofka adag ma aha qofka geesiga ee waa qofka marka uu cadhoodo isqabta ee aan cadhadu la fogaan marka wax wey adiga wax lagaa rabaa haddii aad cadhooto inaad isqabato rasuulka calayhi salaatu wasalaam nin baa u yimid wuxuu ku yidhi ila dardaaran wuxuu ku nabi calayhi salaatu wasalaam ha cadhooni haddana hadalkii ku celiyey ha cadhooni buu ku yidhi haddana adu ilaa 3 jeer ama dhowr jeer buu ku celiyey marka waxa laga socda waxa weeye qofku cadhadu iyada waxa weeye waa qof waxa ugu horeeya ee waxa weeye kaa guulaysanayo ama guuldarrada koowaad ee wax way ku soo gaadhaysaa waa naftaada ood xakamayn kar weydo taana dadku kuguma jeclaanaya qof cadho badan mar kasta cidina ma jecla
6 dhoolla caddaynta waxaa la sheegaa maamaha soo jireena oo leh dhoolla caddayntu waa sixir xalaala rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam isagoo arrinkaa ka hadlaya waxa uu yidhi dhoolla caddaynta aad wejiga walaalka yacni aad u dhoolla caddaysaa waa sadaqo u dhoolla caddee nolosha si ay adigana kuugu dhoolla caddayso qodobka 7 waxa weeye ama tallaabada 7 ama arrinka 7 eed ku soo jiidan karta qalbiyada dadka waxa weeye hadiyad ha ilaabin marna inaad bulshada ama walaaladaada saaxiibada ama walaalada aad saaxiibada tihiin aad hadiyad siisid hadday doonto haba yaraato waxay doontaa noqoto haba yaraatee inaad hadiyad siiso runtii oo waxyaabaha runtii aad qalbiyada dadka aad ku soo jiidan karto nabiguna wuxuu yidhi wax isku hadiyeeya si aad isku jeclaataan nabigu calayhi salaatu wasalaam ayuu yidhi isagoo ka hadlaya arrinkaas ta 8aad lebiska isku day inaad mar kasta aad lebis wacan xidhato si bulshada kugu xeeran ay u qancaan una soo jiidatid indhahooda adigoo ku talax tegaynin waxa weeye lebiska qofku waxa weeye hadduu maalintiiba dhar soo xidho maalintiiba toddobaadkii uu 5 waxa weeye ka soo baxo runtii taas ma fiicno waa israaf laakiin waxa fiican qofku lebiska aad xidhanaysa yani inuu noqdo mid dadka soo jiidanaya oo indhahoodii waxa weeye u wanaagsan oo waxa weeye aanu ahayn dee mid waxa weeye ay dadkii kugu nacayaan ka 9aad waxa weeye dad la hadalka waxaa la yidhaha public speaking ama dadka inaad qaabka loola hadlo inaad barato dhammaan bulshada qaybaheeda kala duwan sida carruurta dhalinyarada haweenka waayeelka rasuulka calayhi salaatu wasalaam isagoo arrinka ka hadlaya wuxuu yidhi qofkii ilaahay iyo rasuulkiisa rumaysanow wixii khayra ku hadal ama waa maxay yacni wax khayra ku hadal ama iska aamus sidoo kale waxa uu yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam hadalka wanaagsan waa sadaqo hadalkaagu inuu hadal wanaagsan noqdo yani qaabka dadka loola hadlo qofka weyn muxuu siduu kaa mudan yahay ilmaha yar qaab loola hadlaa jira waxa weeye qofka waayeelka waxa qaab loola hadlaa jira qofka dumarka qaab loola hadlaa jira ninka ragga qaab loola hadlaa jira waa inaad barato bulshadii oo waxa weeye qaybaheedii kala duwanaa qaabka loola hadlo qofka sidiisa loola hadlo waayahay sidoo kale kelmad baa jirta inta badan la adeegsado dadka qaar adeegsanoo la yidhaahdo oo tidhaahda geesinimadu maaha inaad ku hadashid wax kasta oo aad rumaysan tahay laakiin geesinimadu waa inaad rumaysan tahay waxaad odhanaysid macnaa qof haddaad inta badan qof wax kasta iska odhanaya haddaad aragto ama siduu doono u hadlayo yani taasi geesinimo maaha laakiin waa inaad rumaysan tahay ama aad og tahay waxaanad ku hadlaysaa inuu yahay wax wanaagsan oo dadka anfacaya qulubtoodana kuu soo jiidaya qodobka 10aad aan kusoo gabagabeynaya waxa weeye daawadee dad dhegaysiga bara qaababka loo dhegaysta dadka iskuna day inaad qof kasta dhegaysatid raygiisa iyo odhaahdiisa si dhibirsanna waxa weeye aad waxa weeye ugala baxdo ujeedadiisa kadibna aad u jawaabto waxaa hubaala inaad qalbigiisa soo jiidanayso qofkan waxaan uu ku hadlaya ama raygiisa u tixgeli oo dhegayso markaas waa maxay taasi waxay keensanaysaa inaad dadka qalbiyadoodii aad degto oo waxa weeye markaad ixtiraam yacni qofkii inuu dareemo inaad waxa weeye ahmiyad siinayso markastoo hadalkiisa si fiican u dhegaysato u dhuuxdo kadibna waxaan qofka ujeedada qofkani uu leeyahay waad ogaanaysaa hadhow toona jawaab ku habboon oo aanu ka cadhoonin oo qalbigiisina waxa weeye raali gelaysaa ayaad siin karta marka waa maxay qofku dadku markay kula hadlayaan inaad si fiican u dhegaysato ayaa muhiima waana waxyaabaha runtii qofka lagu jeclaado ee uu ku soo jiidan karo qulubta dadka kale ilaahay subxaana watacaala waxaan ka baryayaa inuu qulubta dadka inoo wanaajiyo oo waxa weeye inoo geliyo jacayl dhammaanteedna ahlu isu wada jeclaano muuqaalka waxaan rajeynaya inaad aad ka heshay fadlan subscribe saar channelka oo nagu soo biir si aad u hesho muuqaaladan iyo kuwa kaloo xiiso badan like iyo share tarahay ilaawin markaad muuqaalka dhamaysto aad iyo aad baad mahadsantihiin daawade wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu